xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo maanta shir jira ku qabtay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo la xiriira qarixii dhawaan ka dhacay afaafka hore ee dekedda weyn ee magaalada Muqdisho doorashada madaxtinimada Soomaaliya iyo abaaraha baahsan ee laga soo sheegayo gobolada qaar ee dalka Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud mar uu ka hadlay qarixii dhawaan ka dhacay dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ayaa tacsi waxa uu diray ehelada dadkii aan waxba galabsan ee dhawaan naftooda ku waayay weerarkaasi tacsi taalamida waxa uu diray madaxweynaha Soomaaliya dawladaha Turkiga iyo Masar oo iyaguna qaraxyo dhawaan dad fara badan ay ku dhinteen halkaasi uu ka dhacay waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo dadkii Soomaaliyeed ee dhibaatada ay ka soo gaartay weeraradii argagixisadu ay geysteen magaalada Muqdisho ugu dambeeyay ee hooyooyinkii Soomaaliyeed iyo xoogsatadii Soomaaliyeed iyo ciidankii amniga intaba isugu jiray hooyooyinkaas iyo xoogsatadaas oo u soo baxay in ay guryahooda masaariiftooda ay si xalaal ah oo xalaal quutanimo ah ku xoogsadaan iyo ciidankii amniga ee ilaalinayay ammaanka deegaankaas weerarkaas fulinimada ah dad aad u qiimo badan oo Soomaaliyeed oo abriya ah oo wax dambi ay galeen aan jirin ayaa nooga geeriyooday waxaan leenahay Ilaahay u naxariisto dadka Soomaaliyeed dhamaantii samir iimaan Allah ka siiyo inta dhaawacana Ilaahay bogsiyo degdeg ah siiyo dawladda Soomaaliyana dadaal badan ay u gali doontaa dhaawacaas sidii loo daaweyn lahaa waxaan rabnaa sidoo kale inaan u tacsiyeyno ummadaha muslimiinta ah ayagana dhibaatadan oo kale ay haysato ee qaraxyadan oo kale ay ka dhacayaan waad ogtihiin qaraxyadii ugu dambeeyay ee dalka Turkiga ka dhacay iyo dalka Masar iyo dalka Nigeria intaba dhamaantood waa sidaas oo kale dad muslimiin ah oo abriya oo waxay galabsadeen aanay jirin oo maxaan ku raay qaarkoodna shaqo u socdeen qaarkoodna cibaadeysanayeen ayaa dhibaatadaas ay gaartay oo lala beegsaday qaraxaas sababta loola beegsaday diin tilmaami karta iyo aqli bini aadan oo caafimaad qaba oo cudur daar u sameyn kara malaha madaxweynaha Soomaaliya dhanka kale mar uu ka hadlay doorashooyinka madaxtinimada Soomaaliya ayaa baaq ku aadan in la dedejiyo qabanqaabada lagu dhaarinayo xubnaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliya diray dhinacyada hawshaasi ku mashquulsan dalkan 47 sano ka hor ayaa ugu dambeysay dadka Soomaalida magac doorasho la yiraahdo inay aadaan lagu soo dooranayo baarlamaanka federaalka ee heer qaran dadaal badan oo dadka Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka ah iyo dawlad goboleedyadu ay wada galeen oo si wada jir ah loo wada galay oo wada tashi iyo isqadarin iyo isdhageysi ku yimiday ayaa muxuu ahaay sababay guusha maanta ka muuqato inta dhimanna hal dadajiyaan leenahay ka soo dhamaato kadib markaa waxay u soo wareegaysaa maamulka baarlamaanka xogayaha guud agaasimaha guud iyo tiimkiisii ku soo wareegay xildhibaanadii in maxaan ku raadayay registration loo sameeyo biometric loo sameeyo warqadii aqoonsiga la siiyo si ay arintaasi marka u dhacdo go'aan ayadoo la raacayo go'aankii madasha ugu dambeeyay ee ahaa 15ka kulankii ugu horeeyay baarlamaanka inuu dhaco gudiyada wali muxuu ay waxyaabaha yar yarka gacantooda ay ku sii hareen waxaan leenahay hadda dejiyeen arintaas si 15ka kulankii ugu horeeyay baarlamaanka dhaartiisa iyo wixii hawsheeda ay u bilowdaan ay u socoto hadii alla yiraahdo ugu dambeyn madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dadka Soomaaliyeed ee hantida haysta iyo qof waliba oo ka qayb qaadan kara gurmadka abaaraha waxa uu diray baaq wada jira maadaama dadka la'aanaya ay yihiin walaalahooda Soomaalida ah dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay u gargaareeno walaalahoodaas gobolada dhaxa ku soo xigo gobolada galmudug ee maxaan ku raadayay galgaduud iyo mudug waa ku jiraan Hiiraan waa ka sii roon tahay gobolada koonfurta sida gobolka Gado oo kale si gaar ah ayaa ayadana culays aad iyo aad u badan oo ayadana abaaraha ah ayaa ka jira jubbooyinka ayaa qaybo kamid ah ayaa ayaguna aad iyo aad abaartu ay u haydaa dhammaan dalkoo dhan abaartu waa wada gaartay laakiin waa loo sii kala daran yahay aad iyo aad ay loogu sii kula culays badan yahay una sii kula culays badan tahay dadka Soomaaliyeed marka waxaan leeyahay meel kasta oo ay joogaan walaalahooda Soomaalida inay soo gurmadaan la iskaashado dadkaas walaalaheena ee xoolihii ay dhaafeen ama ay dhaafayaan in la badbaadiyo naftooda Ismaaciil Axmed Maxamed Ismaaciil Turki TV-ga caalamiga ee Star magaalada Muqdisho